shirkan oo gogol xaar waa shir madxeedka ganacsiga maalgashiga ee Soomaaliya Uganda ayaa waxa uu ka dhacay xarunta wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Uganda waxaana shirkan goobjoog ka madax ka socotay wasaaradda arrimaha dibadda Uganda xogaha joogtada wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya tinjiraha Soomaaliya u fadhiya Uganda agaasimayaasha wasaaradaha qorsheynta ganacsiga maalgashiga iyo gaashaaniga xogaha joogtada wasaaradda arrimaha dibadda ee iskaashiga caalamiga ah ee dowladda Soomaaliya Danjire Maxamed Cali Nuur ayaa warbaahinta qaranka ugu warbixiyay ujeedada shirkan maanta isugu nimid wuxuu hordhac u yahay muxuu ahaa shir ay ka soo qayb gali doonaan oo ama ay soo gabagabayn doonaan madaxda labada dal wuxuuna ku saabsanaa joint permanent mission oo ah commission ah labada dal iskaashiga xagga dhaqaalaha xagga socialka security-ga iyo muxuu ahaa iyo trade-ko dhan marka shirka maanta ayuu noo bilowday oo technical committee oo labada dhan ayaa maanta wada fadhiyo galabta markaan soo gabagabaynana markaa ka bacdi waxaa gogol xaari doonaa berito wixii ka dambeeyo in ay yimaadaan levelkii ministerialka dan markaa ka bacdina labada hogaamiye oo Soomaaliya iyo Uganda principalska inay markaa ay soo gabagabeeyaan communique oo ku saabsan arrimahaas oo dhan in labada dal iska kaashadaan Soomaaliya iyo Uganda oo muddo dheerna wuxuu ahaa xiriirka labada bilateralka waddankeena oo muddo dheer soo jiray ilaa xorriyadda aan qaadanay haddana ay ka mid yihiin dalka ugu horeeya oo liid gareeyo AMISOM wixii la dhihi jiray haddana ATMIS oo ah ku tabarucay ciidamada dalka Soomaaliya la difaacayo SNAda Soomaaliya halkan aan taaganahay waa bartamaha magaalada Kampala ee caasimadda Uganda gaar ahaan wadada loo yaqaano Siyaad Barre Road sida aragtaan wadadan waxa lagu hardhay calanka buluuga ee Soomaaliyeed iyadoo taasi loogu dalnayahay in lagu soo dhaweeyo madaxweynaha dib loo doortay ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud waxa guud ahaan magaalada Kampala ka socoto soo dhaweynta madaxweynaha Jamhuuriyadda